This is everything wrong with American politics today. This is what happens when a politician serves the interests of his voters, constituents, and American. Donald Trump oo xisbiga ay uga wada baxeen qolooyinkii Republicaanka ahaa xildhibaankan lagu magacaabo Thomas Massie ayaa ah xildhibaan conservative ah sidoo kalena isheegay liberal leaning ah si la mid ah sidii Marjorie Taylor Greene balse asaga waliba ka sii xag jirsan oo aad ugu dhow qolooyinkan dimuqraadiyiinta sidoo kalena aad loogu filahayo waliba in Thomas Massie oo ah xildhibaan ka soo jeedo gobolka Kentucky laga soo doorto in uu macnaha xisbigisa xataa bedeli doono markii uu ku guuleystay racekan sida ognahay primary elections ayaa ka jiro gobolka Kentucky oo sidoo kale lagu soo xulanayo isla xisbigan Republicaanka ah dhaxdiisa ay ku soo xulanayaan qofka u tartami doono kursigaas khaaska ah Thomas Massie uu ku matalayo gobolka Kentucky Thomas Massie sida ognahay Donald Trump waxyaabo badan oo waxa jira uu kula dirirahayo ninkan Thomas Massie ayaa sidoo kale Republican ah waa sidoo kale libertarian leaning conservative ama in macnaha uu u janjeero dhinaca liberaalka ah sidoo kalena ninkan uusan ku saleenin xisbigiisa go'aamada uu gaarayo codka uu ka dhiibanayo sidoo kale ajendayaasha Congress-ka Mareykanka ay soo bandhigaan codka uu ka dhiibanayo sida uu uga falcelinayo marmarka qaar inta badanna macnaha uu la safto dimuqraadiyiinta sabab la xiriiro sababahaas sidoo kale in uu criticism ku noqday Donald Trump sidoo kale uu oppose gareeyay spending bill-kiisa in ballroom uu ka dhisto gudaha aqalka cad sidoo kale la burburiyo qaybta hoose sidoo kale laga dhiso goob militariga sidoo kale iyo hubkooda waxaas Mareykanka uu ogol yahay xildhibaanada way ogol base waxa ugu weyn ayaa ah in uu rabo meel raaxo oo uu ugu magac daray ballroom inuu Donald Trump sameesto ay sidoo kale ka soo horjeesaday Thomas Massie oo uu kala mid ahaaday qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah sidoo kale macnaha wuxuu criticize gareeyay ama uu cambaareeyay boolisiyada arrimaha dibadda ama shariicada arrimaha dibadda ee Mareykanka Donald Trump iyo sida uu ku wajahay sidoo kale uuna ka mid yahay kuna jiro Thomas Massie safka qolooyinkan Republicaanka ah Donald Trump ka soo horjeedsaday oo ay hoggaanka u hayso Marjorie Taylor Greene oo hadda wadanka ka carartay si ay ugu kiciso shacabka hadeerna sheegtay in ay waxyaabo badan Donald Trump ka soo qarxin doonto oo afka furatay already ayada oo ku nool hadda wadanka Costa Rica kana dhisatay ama ka gadatay guri raaxo oo ilaa iyo 5 milyan oo dollarka Mareykanka ay ku iibsatay sidoo kale Thomas Massie waxyaabaha Donald Trump uu uga soo horjeedo oo doorashadan 19 bishan dhacayso laba bari kadib dhacayso uu rabo in qadka looga saaro oo qof aan la aqoonin weligiis siyaasadda lagu arkin sidoo kale Donald Trump uu buush garanayo oo millionaire ah oo rabo in uu u loobi gareeyo oo kala shaqeynayo in uu rabo inuu ku boosturo Thomas Massie oo rugcada ah sidoo kalena dadka gobolkiisa Kentucky ay aad u jecel yihiin waxyaabaha hortabinta lehna gobolkiisa sidoo kale ku matalo ayaa ninkan wuxuu ku noqday Donald Trump criticism foreign policy-giisa sidoo kale wuxuu ku jiraa xildhibaanadii dabada ka riixayay ama sign gareeyay ee saxiixay oo Marjorie Taylor Greene ay kula jirto saxiixay in Epstein file la soo fasaxo waxa meesha ku qoran la ogaado Donald Trump inuu ku jiri in kale sidoo kalena aan cidina uga hibaysanin fikiradiisa aysan sidoo kale Thomas Massie waxba ka gelin arrimaha macnaha partisanka ah ee xisbigiisa ahna nin go'aamadiisa sida la sheegayo ama ku qoran statistic iyo waliba taariikhdiisana u leh macnaha ninkan in uu xisbiga ka tirsanaado balse taasi ay ka dhigneen in uu xisbiga lugaha uga xirnaado oo shuruucda ee asaga macnaha ay sheegay oo ay ku qasbaan ama ay sanka ka geliyaan waxyaabaha uu san rabin una yahay man of class ama ninkan in uu yahay nin iska fogeeyay waxyaabaha macnaha in lagu control sidoo kalena taas bedelkeeda uu ka shaqeeyo dadka constituencies-kiisa ama dadka asaga soo doorto waxyaabaha ay u soo dhiibaan aad u tixgeliyo sidoo kale loolankan ayaa ka dhaxdhacaya Donald Trump iyo waliba Thomas Massie gobolka Kentucky laba maalin kaliya ayaa ka hartay doorashada primary-ga ah ee lagu soo xulahayo qofka u tartami doono kursiga gobolkan Kentucky ee Republicaanka ah Thomas Massie ayaa la mid noqday Marjorie Taylor Greene beegsigii uu Donald Trump ku hayay sidoo kale in xilka iska casisho choice-keeda ayuu ahaa balse ninkan maadaama uu san rabay inuu xilka iska casilo sidoo kale uu rabo inuu Congress-ka sii joogo waxyaabaha Donald Trump macnaha ay sheegay uu macnaha munaafaqada uu xisbiga kula dhex jiro cunsurinimada sidoo kale in uu macnaha ay sheegay waxyaabihii uu ku soo oleeyay uu san kaga dhabaynin dadka shacabka uu been u sheegay waxa soo dhan uu ku kicinayo sidoo kale
Thomas Massey maadaama uu yahay sidoo kale nin aspirant ah oo madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne inuu isku soo sharaxo laga yaabo sidoo kale wasiir heer culus ah sidoo kale inuu gaar rabo sidoo kale laga yaabo in uu dhinaca labada dhinac maadaama uu arka hadda hawsha waliba siyaasadda Mareykanka sida ay u liin garanaysa dhinaca ay u liicayso maadaama hadda uu arka inay tahay dimuqraadiyiinta ayuu wuxuu macnaha ay sheegay sidoo kale ku saleynayaa sidoo kale ninkan ayaa ah nin aan iska dhigdhigeen ama dabeecadahan macnaha iska yeelyeel ama hadda inuu isbedelahay kama dhigna taariikhdiisa ayuu sidan soo ahaa weligiisba sida dhaatada ku xusan ninkan Thomas Massey inuu yahay qof madax banaan xisbigisa waxyaabaha ugu badan macnaha uu ku taageeri karo balse waxyaabaha hadda ay sameynayaan ajendayaasha waalida ama waxyaabaha xisbiga uu ku taageerayo iyo u kala soocan yihiin go'aamadiisa asaga iyo dadka constituencies ee soo doortay loolankan ayaa loolankii ugu adkaa maadaama Thomas Massey dadka soo doortay ee shacabkiisa gobolka Kentucky aysan ahayn nin ay ka kaftamaan uusan ahayn ninkani ay rabaan inuu kursiga joogo sidoo kalena Donald Trumpna ay aad u taageersan yihiin marka halkaas loolan adag ayaa ka dhici doona balse dabcan waxay door bidi doonaan qofka asaga matalo sida la sheegayo ama la saadaalinayo ninkan Thomas Massey ayaa sidoo kale asaga oo Washington ka baxayo oo ololihii doorasho u gudagalahayo wuxuu sheegay in hawshan laga karkarinayo gudaha sidoo kale Israa'iil sidoo kale AIPAC ee hawshan dabada ka riixayaan maadaama ajendayaasha uu ka soo horjeestay oo ah weerarka in la qaado Iran lagu qaaday sidoo kalena Epstein files uu dabada ka riixay in la soo fasaxo qolooyinkana AIPAC aysan rabin iyo waliba CPAC oo asaga isla xisbigiisa ah balse xisbigiisa waaxda hoose Donald Trump si toos ah oo la safan ama wax walbaba ku raacsan macnaha ku mucaaraday ay waxay rabaan inay khadka ka saaraan oo nin Navy-ga ama ciidanka cirka Mareykanka ka soo tirsanaa ee meesha ay ku bedelaan oo sidoo kale Donald Trump uu ah close ally taas oo ka dhigan siyaasadda Mareykanka inuu Donald Trump ka dhigay wax macnaha ay sheegay abaalmarin oo kale la isku abaalmarinayo hadii xilkan xildhibaanimada ay shacab soo dooraneen oo ay noqon lahayd position la magacaabo sida wasiir ama xoghaye iyo waxyaabo noocaas ah mar hore uu qadka ka tuuri lahaa Thomas Massey oo uu magacaabo lahaa qofka asaga uu rabo balse credibility-ga dadka shacabka ah ayaa la qiimeynayaa dorashadan ayaan sidoo kale cirka isku shareertay iyo qaabka ay wax u socdaan sidoo kale Thomas Massey hadalkiisa waxay raanay daawodsiyo Exactly. Okay, I'm walking to an airplane to rejoin the most expensive congressional race in U.S. history. Tell us about that. Yeah, well, it's a referendum, really. Unfortunately, it's turned into whether Israel gets to buy seats in Congress. And what they found out is that my seat's really expensive. They've probably, when this is over, will have spent $20 million and come up short. So why is Israel the only country that gets to buy elections in this in the United States? Or does any other country get to? Is this? You know, I've never seen Great Britain or Australia or even Germany play in. waxay ka cabsanayeen waa intaas Thomas Massey uu soo fashilay wuxuu sheegay inay CPAC ama qolooyinkan Israa'iil ay ka shaqeynayaan 20 milyan oo doolarka Mareykanka lagu bixiyay si kursiga loo dhaafiyo ninkan waana sababaha sidoo kale aysan rabin in uu oga hadlo waxyaabaha uu ka hadlayo wuxuu sheegay in kuraasta xildhibaanimada sidoo kale inay gataan ay isku dayayaan sida uu horey sidoo kale u soo sheegay ninka u tartamayo Senate-ka gobolka Texas ee lagu magacaabo James Talarico uu horey u sheegay ganacsato iyo waliba qolooyinkan macnaha AIPAC iyo CPAC ee kuraasta Mareykanka ee xildhibaanimada ay gadanayaan si ay macnaha u keensadaan dad ayaga ku matalo hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada la wadaagso kale muuqaalka like noo saarnaguna soo biir channel-ka hadii aad nagu cusub tahay waana maasantahay